marka hore waa dhawahay radio Banaadir tan xigta anigoo socdaal ku socdo oo socdaalkii nabadda dhalinyarada anoo ku socda oo Garowe sii maray Qardho sii maray waxaan aaday magaalada Hargeysa si qurux badan la soo dhaweeyay habeennimaan galay galabihii oo dhama waa la sugaa laakiin may noqon oo gaarigii baa naga daahay waxaanu galnay habeen saqdi dhexe alxamdulillah ala kulli xaal habeenkii saqdi dhexe laftirkeeda waa la soo dhaweeyay maalmihii dambe waxaan wada qaadanay ani asxaabteeda iyo familkii aan martida u ahaaba inaan waqti fiican wada qaadano habeenada kamid ah oo habeenkii saddexaad ah ayaa waxaan u casho doonanay maqaayada Jumeera maqaayad kamid maqaayadaha Somaliland waxaan u doonanay casho anagoona u soconay anagoo wafdi ah cashadii markaa dalbanay baa waxaan la keenay koob shaaxa oo ka samaysan calanka Soomaaliya ma sha Allah adin ya dalbaday miswani la keenay waxaan ugu soo dhaweeyay sida markii dambe la wada ogaaday wiilka kofashinaha sameeya baa nagu soo dhaweeyay liajli aniga dartay wuuna u sameeyay calanka Soomaaliya sidaas darteed aniga waaqirooda calankayga marka arkana waan farxay dadna waxaan sameeyay kilib yaraan ka duubay kilibkana waa wax shaqadeeda ah mar walba inaan dadkayga aan la wadaagan jecelahay wax walba aniga igu cusub marka koobka shaax uu igu cusbaa horena uma arag koob shaax calan laga sameeyo marka sidii aan ugu farxay waana duubay horena waa ka soo boosti gareeyay maxaa falcelina oo aragtay marka falcelino dhanka baraha bulshada waan arkay oo dadka commentiyada ka soo bixinaayo waxba uma arag oo waxaan u qaatay waxyaabii hore dadku iskaga hadli jireen kidib waxa dhacday in habeenada kamid ah annagoo haddana mar kale marti noo yahay wiil kale asigana Muqdisho nooga yimid waa habeen kale ka duwan waa afar cisho kidib iyadoo sida aan ogaanay la igogoobayo lambaradii la raadina xaafadida la gogoobayo baa haddana waxaanu aadnay maqaaxidii shaaxa hore noogu sameysay maqaaxidii ma sha Allah si qurux badan haddana noola soo dhaweeyay habeenka si qurux badan haddana qaadanay waxaana lagu soo dhaweeyay heesihii Muqdisho lagu amaanayo ma sha Allah aad ugu mahad celinayna iyaduna kadibna waxa dhacday isla markii in ay timaado gabar kamid ah kuwa security albaabka jooga ay ugu tiri soo bax bananka lagaga yeeraya sidii aan ku raacay marka ku raacana waxa dhacday in dhalinyaro albaabka taagan arko isla markaa waxaan isirey dhalinyarada waa dhalinyaro ku taageerta waqti la qaado oo sawir ama wax saasay ka rabaan inay gudaha ku yimaadaan way ka xishoodeen sidii aan ugu tagay waa salaam waa soo dhaweeyay waxay igala hadleen inay taageeraan fiidiyoyadeeda ay jecel yihiin fiidiyoyada waliba aan xayisiinaha sameey ay jecel yihiin dan waxaan isirey nimankan xayisiinay rabaan bal qandaraas la galo liishi amal isla markii haddana way isbedeleen waxay galeen marka kilibkii shaax hore waxaan ka ogaaday marka nimankan inay niman ciidamo yihiin markaan ogaaday waxay saaniya uga jawaabay sida saxdan uga jawaabay kadib waxay ugu yiraahdeen soo bax saldhiga wada aadayna astaan inay ciid yihiin ku muujinayso ma jirtaa astaan inay ciid yihiin ima isa muujineen laakiin wax walba oo dhaco waxa laga xisaabtami lahaa security albaabka jooga ayaga in la ii yeeray familkuna si fiican uma ogeyn xataa in aniga la qaaday kadib ay ogolaaday in familkii aan la socdo ay ii wacaan danna waxa dhacday in saldhigi la geeyo meeshina wixii ay ku bilowdaan waan gartay marka ma wax jirdila ama dhibaato lagu geysmay jirtaygaas haddaan iraado waxba la ii geystay waa been baa sheegay laakiin waxaan leeyahay si qurux badan la dhaqmay magaalada dadkii joogay si qurux badan ay ugu la dhaqmeen ciidankii haday ahaadaan booliiska haday ahaadaan dhammaan mas'uuliyiinta dan waxa kaliya ee ka damqanayna waxa ahayd inaan meesha ku dhax isticmaalay calan aanan ahayn calankooda ee ayagu ay aaminsan yihiin taana waanu ka raali gelinay si qurux badan ay soo dhaweeyeen waxba la igama hadleen waan gartay marka maxaad dareentay adiga in calankaagii Soomaaliyeed adigoo haysta waliba shaax ku sawirina lagu keeno haddana qaab aanan habboonay lagu la dhaqmo dareen ahaan maxaad dareentay adiga marka hore waa ku faraxsanaa inaan calankeyga aan isku duubo
kadib markay dhacday in Somaliland ay soo xirto laamaheeda amniga waxaan garawsaday in ayagu ay ku saxan yihiin in ay soo xiraan laano waxaan jibiyay qayb kamida ayagu wax ayagu ay ku wada heshiiyeen idanna waxaa dhacday in lay maxkamad lay saaro taana ayaga kuma dhihi karo way ku qaldan yihiin anna ma dhihi karo waa ku qaldanaha labadeenaba waa istafa dhaafnay waa isreed dhaafnay marka kadibna laakiin gadaal dambe wax walba ka qurux badnaadeen waa gartay door mar ayay baaqatay maxkamadeyntaada marka maxaa xog heshay inay baaqdaan keenay maxkamadeyntu inay baaqato waa wax sharciyo meesha u yaalo in qofkii la soo muday baaritaano lagu sameeyo mudooyin loo soo siiyo qofkii baaraha waa wax ayago sharci u haystaan waxaa ka darnaan lahayd in aniga meel la iska xiro la iska keedaaya ka xumaan lahayd sifa sharciya leegula dhaqmaayay oo mar walba maxkamad waa la geenayay waa kadib garsoori wixii la ii sameeyay ugu dambeyn waxaa dhacday inaan gurigeygii iyo hooyaday aan ku soo laabto ma jirtaa qof mas'uul ah oo Somaliland oo la kulantay markii horta dadkii ugu waaweynaa ee garab ka geystay in aniga la soo daayo waxaa ugu weynaa adeerkay oo sida aad ogtihiinba dartii lagu soo daayay adeer Axmed Dheere Duuliye Axmed Dheere iyo saaxiibkii Duuliye Yaasiin iyo saaxiibkiisa kale Duuliye Taaliil ayaga dartoo lagu soo daayay dad mas'uuliyiin waa la kulmay oo shalay ugu dambeysaan la fariistay oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska Somaliland aan la fariistay si qurux badan oo ii soo dhaweeyay si qurux badan oo uga damqaday waana leega garnaqay anigana raali gelina ka bixiyay waan gartay waxaa jira shacab Somaliland ku sugan gaar ahaan Hargeysa oo si weyn kaga dhiidhiyay xiritaankaaga markaan ka soo tagnay qaybtan koonfurta dhinaca Somaliland dadkii ku dhiidhiyay soo deyntaada waxaa qayb ka ahayd in gabar ay cusubtay oo Hargeysa joogta in xorriyadda dib u hesho qoyska dib u la midoobo marka dadka shacabka ee Hargeysa ku sugnaa maxaad la wadaagi lahayd dareen ahaan horta dadka reer Somaliland hadday dad nasab aysan ahaan lahayn aniga maanta waxaa hubaal ah inaan ku dhex dhiman lahaa xabsiga sababtoo ah waxa ay ka waxay hooyooyinka reer Somaliland maalinna maan dareemin inaan ahay nin Muqdisho ka yimid oo xaafadiisa masaafo dheer ay jirto waxaan dareensanaa kuwa meesha igula xiran ee hooyadu ay u maanayso inaan la mid ahaa hooyooyin reer Somaliland oo hooyaday la mid ah inay iimaanayeen mar walba dareen ila qaadanayeen mar walba ku dadaalayeen sidii la soo deyn lahaa laakiin alxamdulillah ugu dambeynna miraheeduna waa maalinay reer Somaliland kaliya ma ahan reer Hargeysa oo kaliya Somaliland oo dhamaan goboladeeda laga iimaanayay ha ahaato gobolada hadda aan xusi karo meelaha aan hadda aan xusi karo waxaa kamid ah Burco iyo Berbero iyo Gabiley iyo Boorame meelo badan loo iga yimid jirtay oo dhalinyaro iga yimaadeen ha ahaato cunaha ay keenaan qudrawaad ha ay keenaan cabitaanaha ay keenaan macmacaan ha ay keenaan wax alla wax raba ha ay keenaan waxay igu iimaanayeen dad dareen inay isiyaan inay dhiirigeliyaan inay niyadii dhisaan ay yiraahdaan annagu kumeen xiranay dawlad baa ku xiratay insha Allah ka soo saaro ducadooda iyo ducada dadkayga aan ka soo baxay waan gartay waa maasan tahay ugu dambeyn waxaan rabnaa dad badan ayaa isweydiin kara bilaal ma ku laaban doonaa barihii bulshada oo caanka u ka ahaa barihii bulshada waa ku laaban doonaa daalin insha Allah dadkaygana dibaan u sii madadaali doonaa waliba Somaliland laftirkeeda xataa ciid hadda igama hor taagna insha Allah haddii Allah idmo maalin maalinkan u baahdana waa u laaban karaa